بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 9 bisha December sanada 2019 waxaan shirkan jaraa'id kooban oo aan ku qabanayno xafiiska urur siyaasadeedka cusub hogaanshe political organization xafiiskan oo aan rabno inaan maanta oo taariikhdu taas aan sheegay ay tahay inaan si ku meel gaar ah ugu dhawaaqno in laga bilaabo maanta xafiiskaasi ama ururkaasi uu furan yahay xafiiskan oo ah xafiiska main office-ka ah ee magaalada Boosaaso oo hadda ah kan kaliya ee ururku leeyahay ayaan rabnaa inaan bulshada u sheegno in aan ururkaas hogaanshe aanu furnay runtii xilli adag oo xasaasi ah ayaa lagu jiraa hore ayaan magaca ururka iyo ujeedooyinkiisa iyo dabcan aan baraha bulshada ugu baahinay in badan ama 99% bulshadu waa ay jecel yihiin in Puntland ay ka gudubto nidaamkii hore ee madaleyska ahaa loona gudbo nidaamka saxda ah ee dastuuriga ah ee ku qoran dastuurka Puntland ee ah in siyaasadda Puntland lagu dhaqayaa ay tahay nidaamka axsaabta badan ee hal qof iyo hal cod runtii waxaad moodaa shaqadan aan hadda ka hadlayno ama waxyaabaha Puntland ka khaldan in ay tahay systemkii dawladnimo oo aan la hormarin ilaa iyo sidii Puntland loo asaasay ee 1998 tusaalaha ugu fududna waa in xilligii Puntland la asaasay 3 sano gudahood axdigii ku meel gaarka ah ee Puntland uu qorshuhu ahaa in nidaamka xisbiyada badan Puntland loo gudbiyo laakiin 20 sano kadib ilaa iyo hadda in aan nidaamkaas loo gudbin waxa ay muujinaysaa in dawladnimada sida loo fahmay iyo sida laga rabo aysan ahayn wax isle sababtoo ah Soomaalidu waxa jira eray ay isticmaasho ah aan maalno hasheena maandeeq laakiin qofna kama maqlaysid hasheena maandeeq aan caws iyo biyo siino hasheena maandeeq aan shilinta ka gurno hasheena maandeeq aan kurino hasheena maandeeq aan bahalka iyo shilinta iyo qaniinka aan ka ilaalin dawladnimada waa saas oo kale shayga in la maalo ama neefka xoolaha in la maalo waxa ka horeysa in la daajiyo oo la xanaaneeyo marka runtii ururkan waa sidaas aan sheegay waa dastuuri ujeedadiisa ugu weynina waa in nidaamkii hore Puntland ka gudubto nidaamka dastuuriga ah loo gudbo sidaas darteed waxaan rabnaa bulshada reer Puntland inaan u sheegno in ururkaasi siyaasadeed ee hogaansha uu furan yahay bulshada ay ku soo biiri karaan ay ka mid noqon karaan laga rabo inay mabda iyo muruq iyo maal intaba ay la garab istaagaan waayo waxa hal hays caan aan noqday markasta oo doorasho la qabanayo bulshada waxay aad isu weydiisaa murashax hebel yaa wata murashax hebel waxa wata Imaaraadka murashax hebel waxa wata Qatar murashax hebel waxa wata Zimbabwe murashax hebel waxa wata Jamaica iyo Brazil iyo balayaan la aqoon marka idinku waxa yeeshay reer Puntland haddiina idinku wax yeelan waa la idin yeelanayaa haddiina idinku idnaan xisbiga hogaanshe iyo kuwa la midka ah filan in la furo idnaan ku soo biirin oo marka la yiraahdo xisbiga hogaanshe yaa wata waxa rabaa in la yiraahdo reer Puntland baa wata haddii kale idinku wax yeelan weydaan haddii idina waa la idin yeelanayaa weligiina waxaad ku jireysaan murashax boorso wato oo dhulowgeeda la ka yimid oo hadhowna waxaad haysataan oo dhan ee wareejiyo oo cid kale u shaqeynaya waayo cid walba cidii maal gashatay u shaqeynaya taas waa midaas kale wax walba waa bilow ururku waa ku meel gaar xafiiska hadda la furay kadib waxaan rabnaa inaan Garowe tagno xafiiska labaad aan Garowe ka furno sidoo kale aan guddigii la kulanno oo aan xaruntoodii ugu tagno sidii shuruuc iyo wixii loo baahan yahay iyo wixii la isu waafajin lahaa kale dabcan xeerka doorashada ee Puntland waxaan filayaa sida hadaanan wax khaldin ilaa wax oo dhan baa nagu cusube inay ku qoran tahay in ururka la diiwaan galiyay ay ka horeyso inuu 6 xafiis 6 gobol ka furto uu diiwaan galiyo oo wixii iswata iyo wixii urur ah ula tagaysid guddiga doorashooyinka sidaas baan filayaa laakiin shaqadan xisbiyada badan waa shaqo cusub sida daraadeed waxay u baahan tahay shaqadii socota in nidaamkii doorashada iyo dawladii iyo guddigeedii iyo waxeedii la waafajiyo taasi waa midaas waxa xiga inaan iyadana aan wax yar raba inaan ka iraahdo
qalalaasaha siyaasadeed ee muddooyinka dambe ka jiray Puntland runtii qalalaasaha siyaasadeed waxaan qabaa anigu ama urur ahaan qabnaa inay gundhig u tahay ama ay sal u tahay systemka dawladnimo waayo inaan ay sidaa tahay waxa cadeynaya waagii la doortay 8 January 2019 markii la doortay madaxweyne Dani mudaharaadyo dhacay dawladda lagu diidan yahay ma ahayn in Dani la diidan yahay sababtoo Dani hore madaxweyne uma soo noqon lama aqoon wuxuu noqon doono laakiin maxaa la diidanaa systemka iyo sida wax u socdaan baa la diidanaa iyo sidoo kale xubno dawladda Puntland soo maray oo soo fashilmay hore uga soo mid ahaa oo ololihii doorashada ee madaxweynaha ka dhex muuqday hadeerna dad badan qabaan waxyaabaha khaldan inay iyagu qayb ka yihiin marka waxaan rabnaa dhinacyadaasna inaan u sheegno dawladnimadu xoog iyo khasab iyo caburin ma aha waa system iyo nidaam iyo heshiis bulsho oo ay tahay in la raaco laguna dhaqmo tusaalaha ugu fudud waxa ka mid ah maalin dhow waxaan dhageysanayay wasiirka warfaafinta Puntland oo hadlay oo la wareysanayo wuxuu leeyahay wasiir Somaliland ama SNM ka socdaba wuxuu yimid taleexo dib uma aragno waa deegaankiisi oo wasiir Sabareeyo haddaan uu su'aal ku weydiiyo la saacana waa deegaankayga iyo ma tagtid how to weyd adigu haddaysan dhib lahayn in Hargeysa ka yimid oo wax la yiraahdo oo mushaar doontay oo taleex yimaado haddaysan dhib lahayn adigu maxaa u tagi weyd waxa kale oo weydiin leh madaxweynaha Puntland hore wuxuu yiri waxaan wada hadal la galaynaa Somaliland madaxweyne ma ninka gabile inta ka soo duulay tukaraq degan haddana qorsheynaya inuu biri ku soo duulo yoocada yimaado ma ninkaas wada hadal la gashay haddaan se ku weydiino wada hadalka muxuu ku salaysan yahay ilaa dastuuri ma ahane dastuuri waxa ina xuduudaha Puntland sugtaan xuduuduna waa labada gaatama iyo dulmadooba barcadu sheedaa ma aha tukaraq iyo yoocada maxaa ku salaysan bal ka jawaab waxaad xirxirteen boosaaso dad baa waxay ka hadleen DP Wall 3 sano joogtaa 2 sano inay dekada ku dhisto oo heshiiska la galay ilaa hadda ma dhisin odayaal baa ka hadlay waxay yiraahdeen sharci darro ku joogta xabsiga u taxaabteen oo yaa sharcidiinsi awood xagee kala timaadeen soo dastuurkeena kuma qorno in dadku mudaharaadi karaan soo kuma qorno inay dadku aragtooda dhiiban karaan hadda baan hadlaynaa oo waxaan u aragnaa annaga urur ahaan inay DP Wall sharci darro wadan ku joogto ma ciidan baa soo diraysan waxa dhahaysaan Tolman la soo xiro iyo xafiiska hogaanshe waxaan idin kula talin lahaa dawladnimadu saamahane qoriga aad la qarqaraysaan inta meel isaga tiirisaan oo shakiga iyo balaayada idin ku jirta meel iska dhigtaan dadku idima diidane dadka wada fiican oo sax ah ku hogaamiye oo waqti waad haysataane hanagu celinina wax la yiraahdo iska daba wareegi sidii saal isaga daba wareegaya ahayd 4 sano waa dhamaatay ama 5 sano waa dhamaatay ee systemka hore lagu noqdo taas wallahi billahi tallahi waa kitaab jaamacad doorasho dambe oo dumaal ah inaysan Puntland ka dhicin ninkii ku farxaya iyo ninka nahayada 2023 ninka xoog badan ma jiro marka systemkaas hayna deeqo oo dawladnimadu hayna deeqo oo waxaan ku heshiinay aan ku dhaqano saasa dantaydu ku jirta danteenu ku jirta danteenu ku jirta waana maasantii